in ka badan 80 arday ayaa ka qalin jabiyay jaamacadda Bariga Afrika xarunteeda Buuhoodle ayaa xaflad ballaaran loogu qabtay howlka shirarka jaamacadda Bariga Afrika xarunteeda Buuhoodle kuliyadaha laga qalin jabiyay ayaa kala 4 diblooma hoose oo kuliyada Social Science ee jaamacadda Bariga Afrika munaasabada arday ku qalin jabinay ee ka soo qayb galeen waxgarad isimo cuqaal waalidiin maamulka gobolka Cayn ee Puntland bahda jaamacadda Bariga Afrika waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay kana warbixiyay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika xarunteeda Buuhoodle Dr. Cabdilaahi Cabdi Samad maanta ardada halkan inoo qalin jabinaysa waxa weeye waa 80 arday waxay ka kala qalin jabinayaan dibloomooyin hoos taga dibloomooyin afara oo kala hoos taga laba kuliyadood kuliyada koobaad waxa weeye waa kuliyada BBA-da ama Business Administration-ka laba diblooma hoos taga ayaa inoo qalin jabinaya dibloomka koobaad oo Project Management ama Idaarat al-Mashruucaat waxa weeye dibloomka labaadna waxa weeye waa Islamic Bank faculty-ga labaad ee laga qalin jabinaya waa kuliyada waxa weeye Social Science-ka ama culuumta bulshada waxaana inoo qalin jabinaya laba department oo kala waxa weeye Public Administration iyo waxa weeye Social Work ayaa inoo qalin jabinaya ardada maanta aynu halkan ugu dabaaldegaynaa ee yawmul faraxoodii xafladoodii aan joognaa waa 80 arday waxaan soo dhaweynayaa ardada qalin jabinaysa ee fakaltiyada kala duwan baan iyagana soo dhaweynayaa hambalyo ilaahay idin barakeeyo oo idinku anfaco idinka iyo bulshadaba barashada aad barateen Allah idinku anfaco jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda Buuhoodle waxay bixisaa 5 qaybood ama 5 faculty oo diyaar ah oo kala ah kuliyada maamulka iyo maareynta kuliyada shareecada kuliyada arrimaha bulshada kuliyada computer science-ka iyo kuliyada caafimaadka kuliyada waliba waxa ka farcama kuliyada ugu yar laba kuliyadood oo baa ka farcama sidoo kale waxa sanadka noo qorshaysan oo insha Allah aan daafuri doonaa hadii alla idmo laba kuliyadood oo kuliyada waxbarashada ama education-ka iyo kuliyada luqadaha waxa si degdeg ah oo dibloomooyin oo hoos taga oo ay midna tahay Islamic Banking and Finance iyo Project Management waxa ku wareejin doonaa xogtoodii oo ah inay qaateen manhajkii looga baahnaa buuxiyeenna ardaydaasi shuruudihii looga baahnaa waxaan si gaar halkan ugu xusayaa ardaydii anigu aan gacanta ku soo hayay kuliyadooda madaxa ka ahaa ee Social Work iyo Public Administration oo runtii ah laba faculty ama laba department oo inagu cusub deegaankeena waxbarashooyinkii maadiga ah ee inta badan hore inoogu soo jiray waxay ahaayeen BBA oo maamulka ganacsiga iyo maareynta ganacsiga iyo ICT-ga oo ahaa computerizerka iyo caafimaadka marka labadan department runtii waa laba department oo inagu cusub Social Work waxa la yiraahdaa u adeeg waxaan kala u hambalyeeynaa ardayda qalin jabisay ee maanta aan ka mid kahay gaar ahaan waxaan aad ugu hambalyeeynaa kuliyada aan ka mid kahay ee maamulka iyo maareynta aan maanta qalin jabinay waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa dhiinkayaga Cabdishukri Cabdilaahi Madadaal oo runtii dadaal aad u wanaagsan iyo karti lagu bixiyay intii aan wax baranay waxaan kala u mahad celinayaa waalidiintayada dhammaan waalidiintii garab taagnaa intii aan wax baranay marka aniga iyo garaa Cabdirasaaq waa la qalin jabinaynaa hambalyaan leenahay ardada qalin jabinaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwii guuleysta maqaam sare gaaray Allah ka yeelo runtii maamulka jaamacadda iyo macallimiintiisa iyo hormoodiyada iyo waalidiinta iyagana waa u hambalyeynaa inay maaragtay ardadoodii qalin jabisay oo tacabkoodii miro dhalay shirkadda Daabshiil Group sidoo kale ardada halkan ka soo qalin jabisay ee jaamacadda Bariga Afrika ka soo qalin jabisay waxay shaqaalaysiisay oo xafiisyadeeda Daabshiil Group uu hole jooga 9 arday oo ardaydii halkan ka soo qalin jabisay halkan wuxuu aad uga soo jeediyay maaragtay gudoomiyaha jaamacaddu in ardada aad la isku garab taago horta anaku 9 arday baanu qaadnay
oo hadda xafiiskayga jooga kuwa kale oo fara badan inaan soo dhaweyno ayaanu rajaynaynaa waxa ka shaqeeya staafkii ama teamkii hadeerta halkan shahaadooyinka la siinayay ee lagu sheegay mishiinadii iyo taayiradii jaamacadda annagana waxay noo yihiin mishiinadii iyo taayiradii hay'adda noodo waxay yihiin mishiinadii iyo taayiradii caafimaadka gobolka waxa kamida farax axmed kalmadeeda ugu dambaysa waxaan farayaa gudoomiyaha gobolka Cabdifatax Ciise Maxamed iyo suduwaha wasaaradda haweenka waxaan leeyahay ardaydaas maanta dibloomka dhamaysatay waa in idinka iyo wasaaradda arrimaha haweenka ee dawladda Puntland iyo dhammaan dawladda Puntland aad u raadisaan labadii sano ee digriga ahaa say waxbarashadoodii u sii wataan oo loogu abaal mariyo dhammaantiin waa mahadsantii salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu horena u soo insha Allah inta labaad waxaan rabaa inuu mahad celiyo jaamacadda bariga Afrika oo hogaaminayo Dr. Cabdulla Cabdi Samed oo runtii dadaal aad iyo aad u ballaaran ugu jirtay deegaanka siday u soo saari lahayd inay la helo dad aqoon-yahana oo deegaankan wax ka bedela runtiina way muuqataa waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska wasiir Naciimo oo suuro gelisay Ilaahay ka sokow in ay siiso gobolka arday tiradoodu ay dhan tahay 20 gabdhood 20 gabdhood waxa weheliya 30 arday oo run ahaantii ay ku dartay jaamacadda bariga Afrika taana gudoomiyaha aad baan ugu mahad celinaynaa iyo dhammaan inta maxay tahay kaleba wasaaradda haweenka ee dawladda Puntland ee wasiir Naciimo u horeyso inay ku dhiiratay inay intan ay bixiso digrigan insha Allah bismillaah kariim aan ku keenin doona hadii Allah uu dul ka dhigo shaqa abuurkana qayb baan ka nahay waa qaadan doona hadii Allah uu maamulka gobolka iyo wasaaradda dawladda Puntland hadii Allah uu dul ka dhigo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay ardayda qaran jabisay wiilal iyo hablo wala hambaliyo meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waa idin soo dhaweynaynaa waana idin hambaliyaynaynaa waxaan leenahay hambaliyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa aad barateen ha idin barakeeyo noqda kuwa anfaca noqda kuwa qoysaskooda anfaca noqda kuwa buuhood la anfaca noqda kuwa Soomaali anfaca Ilaahay saasaan idin ka baryaynaa waxaan idin rajaynaynaa in aad sida la sheegayay waxayna haysta culays nabadgelyo culays siyaasadeed waxaad moodaa horeyna aanu idin la isku milan yahay oo dadka wax bartay midhahoodii iyo faa'iidadoodii iyo inay xumaanta diidaan xoogaa ay yar tahay noqda kuwii ugu horeeyay horseed noqon doona oo ka soocnaan doona